hooyada uurka leh inaanan yacni loo fiirinin xanaaqi iyo dhibaatada ee iida gudbinayso waa mid dabiici oo ay ka keenayo xanuunka haayo laakiinse aad loo ilaaliyo mar walba qofka u dhow inta badan waxaa isleeyahay qofka u dhow hadeertan waxaa waaye odaygeeda in oo maskaxdiisa ka dhaadhiciyo qofkan la joogto ee maanta uga baahan tahay garab ka weyn mararka kale ay kaliya tahay garabka ay uga baahneed markaan laba qof iskugu dhex jirtaa caafimaadkeeda toos wuxuu saameynaa caafimaadka cunuga yani waxaa laga yaabaa wax walba aadani inay iida saaran tahay mujtamaceennana intii hormartay horta way badan tahay alxamdulilah laakiin waxyaabo kale oo dhibab kale ka dhex jiro waxaa inta hadda kow laba ka dhihi kara maahan waa waxaa wada ognahay sidaas daraadeed yani maanta waxaa rabaa inaa baraarujin ku sameeyo ama adkeeyo موضوعان إن هو يدا حنونة نفسية دبات وين وكينا ينفس ديدا ينفس دعنوجا انتبه مرة وحاجر هرتا عاديا وحاجر حنونة هو يدا سو وجهه نفسيا أو مركي عنوجا أشكا دب أو لوي يعني بلو بيبي أو دهان أم بوست باترم وحنا قلنا يعني هو يدا إنه سكلا وأركت عنوجي أما عنوجي كفيكتو أما depression oo ku dhaco ama ka go'do bulshadii oo dhan yani xanuun cusub inuu imaado waxaas dhan oo dabiiciga ah oo u imaanayay hormoonska badan ee uurkaas ay leedahay hadii aan anagana ugu sii darno mid kale xanuunkeeda leedahay hadii qalad walbo dhaco eedeed iida la saaro xanuunkeeda leedahay cunugan maadaama ay iida caloosha ay ku hayso laazim in koo iida caafimaadkeeda la ogaado iida ay koo noqoto iida aad loo xanaaneeyo ka bacdi wax fiican oo soo saari karta doo ilaahay markaas caafimaadna wada siinaa marka xanuunada nafsiga ma ahan in ay ka maran yihiin hooyada uurka anagana yaa ugu sii darin mujtamaceena ahaan ama nin ama nooc walba ha ahaado yani qofka marka uu leeyahay ha loogu naxariisto in ka badan naxariistii hore oo asaga oo mudnaa ama ay mudneed markaas waxaan rajeynayaa inaan wax uniga fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.